barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga iyo video ay uga hadlayso qaxootiga Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan duleedka magaaladaas Xamar maraakiibta caalamiga ee marinkooda iyo badweynta Hindiya oo u tababaranay sidii ay isaga dhicin lahaayeen burcadbadeedda gabar Soomaaliyeed oo soo weeraray nin dad qala ah waraysiga aan ka qaadnay maamulaha dhismihii gubtay wararkii ugu dambeeyay iyo video toddobaadka oo ah wiil shanjira oo idinka yaabin doona ma ogtahay oday Soomaaliyeed oo jira 112 sano inuu guursaday toddobaadkan gabadhiisa 17 sano oo qura odaygan magaciisa la yiraahdo Axmed Maxamed Doore ayaa waxa uu dhashay sanadka markuu ahaa 1897 Axmed ayaa xaaskiisa cusub waxa la yiraahdaa Safiya Cabdulle waxa uu yiri Axmed weligay iyo Allahay ayaan waxaan ku riyoonay inaan gabartaan oo kale guursado mar wax la weydiiyay Axmed sababaha uu ku guursaday gabadhan wuxuu yiri ma khasbin xeeladeeda ayaan waxaan uga dhaadhicay jaceylka aan iyada u qabo wayna iga yeeshay waxaan oo bilaabanaysa wargelin waata daawadayaal waxa ku soo dhawaataan wargelin barnaamijka mar walba Ilaahay ka barya in wadankeeni uu nabad ku soo celiyo iyo sidii waayo ciyaalku inaan tabakaayinka uga gadan jireen International naval forces may be closer to finding a British couple feared captured by Somali pirates. Authorities say Paul and Rachel Chandler were heading to Tanzania from the Seychelles in their yacht. waxay burcadbadeedu telefoon ugu sheegeen wariyaasha in ay gacantooda ku jiraan nin iyo haweeney ay ka soo qafaasheen badweynta Hindiya waxaana ay sheegeen inay labaduba caafimaad qabaan waxayna intaas ku direen in burcadbadeedu ay ku doonayaan madax furasho wariye Ingiriis ku dhashay ayaa cadeeyay in labadaas qof la kala dhaho Paul iyo Rachel Chandler da'doodana lagu qiyaasay 50 jir waxayna ku safriyeen dooni kuwa dalxiiska ah waxayna ka yimaadeen wadankaas Seychelles ayna u socdeen wadankaas Tanzania kalluumaysata Soomaaliyeed ayaa sheegtay inay arkeen laba dooniyood oo ay saarnaayeen 8 burcadbadeed ah iyo 2 qof oo ajnabi ah waxayna soo gaareen ay yiraahdeen magaalada Ceelxuur Paul Chandler ayaa mar uu waraysi ka bixinayay telefoonka Starlight-ka wuxuu yiri waxayna weydiinayaan mar walba lacag waxayna qaateen wax kasta oo doonta saarnaa oo qiimo ku fadhiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu ka xun yahay duqeynta ciidamada AMISOM ay u geysanayeen shacabka Soomaaliyeed Umar Abdirashiid Ali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay dawladdiisa ay ka xun tahay duqeynta ay dadka shacabka ku leynayaan ciidamada AMISOM ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in AMISOM ay kala hadleen deegaanada ay duqeynayaan taasina aanay wali hirgelin balse dhibaatadaasi ay dhawaan soo dhamaan doonto dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa difaacay duqeymaha ay geysanayaan AMISOM Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka ayaa Khamiistii shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho waxa uu difaacay xaqa ciidamada AMISOM ay u leeyihiin in madaafiic ay isku difaacaan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in AMISOM ay xaq u leedahay inay jawaab ka bixiso madaafiicda iyo weerarada gardarrada ah ee ay soo weerarayaan al-shabaab iyo xisbul islaam wuxuuna yiri xaq ayay u leedahay inay duqeyso meeshii madaafiic looga soo rido isagoo hadalkiisii wata wuxuu yiri maalin walba kooxaha nabadda diidan madaafiic ay shacabka ka soo dhex tuuraan in badan ayaa la isku dayay inaan loo jawaabin laakiin ayuu yiri waa xaq in la iska difaaco wixii dhibaato ay soo geystaan AMISOM wuxuu yiri waxa loo haystaa ciidamada al-shabaab iyo xisbul islaam maadaama ay iyagu soo bilaabeen factoorida daawadayaal waxaan wali ku jirnaa barnaamijkeeni wargelin haddii aad rabtid inaad noo soo dirtid wixii talo ama tusaale ah ama aad jeceshahay video aad rabtid in halkan barnaamijka wargelin laga sii daayo
waxaad noo soo diri kartaa emailkayga waxa weeye wargelin@wargelin.com. waxaa kaloo nagala socon kartaa ama aad soo rukuman kartaa twitterkayaga oo ah @cabdisalaan caaf. gabar Soomaaliyeed oo 8 jir ah ayaa nin dad qalay wuxuu ku weeraray dowladda magaalada Hargeysa. laakiin intaynan u gudbin in ka badan 1,500,000 oo Soomaali ayaa ka barakacay dagaalada ka socda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. barakacayaasha ka soo cararay dagaalada Xamar ayaa intooda badan deegaan ka dhigtay meesha lagu magacaabo ceelasha biyaha. haddaba hay'adda qaxooti u qaabilsan qaramada midoobay ayaa soo duubtay video ay uga hadlayso dadka halkaas ku tabaalaysan. Perhaps one of the most complex displaced operations is in Somalia. A lack of infrastructure and constant violence mean that helping the needy is both complicated and dangerous. The European Commission Humanitarian Aid Department is one of UNHCR's main partners. Our approach is to focus primarily on the immediate survival needs, in particular those related to water, to food, health and shelter. But also looking at other opportunities, taking into consideration the context in which we are working. The resulting lack of access impacts directly on innocent civilians who are trapped by the fighting and are unable to escape. They live a day-to-day existence, eking out a living transporting goods or picking through trash. Abdur Rashid fled from Mogadishu. marka kadib intaan soo iimaan wax hadda alaab anaka aan ku soo barkaan soo qaadanay meel digaaleen soo ararnay meeshii aan nimid hadda maalmeedka waxaan maraynaa gaargaan qaadanaa maaragtay hoogo 15 kun mise 20 kun baan soo helnaa intaas ilmaan ka maraynaa. It's estimated that more than 500,000 people have fled the violence and found refuge in camps along the so-called Afgoye corridor, a 30-kilometer stretch of road between Mogadishu and the town of Afgoye. In between are squalid makeshift settlements, each more miserable than the next. There is little sanitation, no space, no electricity, and a general shortage of food. Helowe came here with her 7 children. She struggles to feed them. Somalia has been in a state of war for almost 20 years. The violence and accompanying humanitarian crisis have forced millions of people to leave. Left behind were the poorest of the poor, unable to escape and constantly on the move to stay ahead of the conflict. It's a dehumanizing existence. Many hold on to the hope the fighting will end one day. Others, like Helowe, are ready to give in. This week, the African Union is expected to adopt a convention for the protection of the internally displaced with the aim of offering the more than 11 million affected on the continent greater security. maraakiibta caalamiga ah oo Mareykanka iyo badweynta Hindiya ayaa baryahan dambaba waxa ay isku taxalujinayeen sidii ay isaga caabin lahaayeen burcad badeeda Soomaaliyeed. daawadayaal waxaanu idiin soo gudbinaynaa maraakiibtaasi sida ay doonayaan inay ula dagaalamaan burcad badeeda iyo qaababka ay doonayaan inay ku ilaaleystaan maraakiibtooda si ay u gaaraan iyagoo nabad qaba halkii ay ku socdeen maadaama shixnada ay wadaan ay tahay mid qaaliya oo waqti ku socdo. Using the crudest tactics, they've hijacked the shipping industry. With grappling hooks, AK-47s, and rocket-propelled grenades, they brazenly clamber on board massive tankers and cargo ships, taking crews hostage. They usually have little use for the cargo. It's ransom they're after, and they often get it. Pirates off the eastern coast of Africa have cost the industry billions of dollars in recent years. But this is what they could now encounter. A security team helps the crew get into a blast-proof bridge. A sniper takes position on deck, scans the perimeter. It's a drill on board the SS Horizon Producer, a cargo ship making a run into San Juan Harbor. The vessel's equipped with a new multi-layered security system called Triton Shield. It starts with long-range surveillance cameras to detect pirates further out, and if they do get close, loudspeaker alarms. Vessel alert.
few feet away, trained guards patrol the deck under simulated fire. At sea and in port, CNN has exclusive access as the captain and crew are trained how to scramble into their secure bridges and engine rooms. It's not always smooth. I need the guy's name they're missing. But the captain says his crew needs this. Well, you saw the drill, guns going off and that kind of stuff. And there was a realism about it, and I think it woke up a lot of guys. Why don't you give us... The firm provides everything: security teams, fortification of bridges, sniper nests, training the crew how to react if pirates breach the vessel. I spoke to an IMSN instructor who asked that his name and face not be identified because he conducts training in high-risk regions. We show them how to detain that individual. We show them how to use handcuffs. We also, in the course, train the crew on how to be a hostage. But there's another part of the system aimed at never letting it get that far. This is a crucial part of the deterrent. A wall of water that blasts down from the gunnel to knock the pirates off as they try to scale the ship. It can also flood the pirates' boat. They can mix in bleach, pepper, oil, even soap to try to distract them even more. I'm repeatedly blasted, and when I try to look up alongside the hull, I can't see a thing. Back on deck, I press the instructor about the effectiveness of all this. How confident are you that this wall of water, the blast-proof bridge, the loudspeakers are going to really keep pirates from coming on this ship? Well, Brian, we're 99.999% sure that we've got the answer here. That's certain, because the pirates and the criminals always stay one step ahead of the law. 99.9%. That's true. Why? Well, back in our factory, we're already making the next version of the next step up. We're going to one-step them. Every time they make a move, we'll be ready for them. haddii aad doonaysid inaad noo soo dirtid wixii talo, tusaalo, hambalyooyin iyo salaamoba, ama aad haysid video xiise leh oo aad rabtid inaad la qaybsatid shacab weynaha Soomaaliyeed, waxaad noogu soo diri kartaa emailka ah wargelin@wargelin.com. waxaa kaloo barnaamijkan ka daawan kartaa website-yada kale ah bartamaha.com, raxanred.com, somalinewsport.com iyo website-ka calanka.com. meelahaas ayaa naga soo raadi kartaa. taariikhdu markay ahayd bishii October 17keedii sida aad la wada socoteenba waxaa la gubay ganacsi aad u weyn oo ku yaalay wadada weyn ee Westerville magaaladaas Columbus, Ohio. ganacsigaas oo ka koobnaa biibito, hool lagu dhigo xafladaha, maktabad islaami ah, timajare, meel canshuurta lagu xareeyo, meel gaadiidka xamuulka ah lagu xareeyo iyo masjid Salaama. nasiib wanaag waxa ay boolisku sheegeen in dabkaas uu ka badbaaday masjidkii la oranayay Salaama. sida ay boolisku ay sheegeen waxaa falkaas lagu tuhunsan yahay inay dad ka dambeeyaan. arrintaas baaritaankeedana wali waxa ku hawlan booliiska iyo FBI-da. waxaa la isla dhex marayaa in arrintani ay ku saleedahay khilaafaad horay u jiray oo ka dhaxeeyay dad ka tirsan labada masjid oo ku yaala magaaladaas Columbus, Ohio, oo la kala yiraahdo Masjid Salaama iyo Masjid Ibn Taymiyyah. waxaan helnay warqad uu soo diray qareen matalaya Maxamed Xasan oo ah maamulaha la wareega dhulkaas oo lagaga codsanayay imaamka iyo maamulaha Masjid Salaama inaysan ka soo agdhawaan karin goobta masjidku uu ku yaal. taasina waxa ay dhalisay in Masjid Salaama uu khudbado iyo waraaqo ay uga jawaabaan arrintan. sida ku taala warqad jawaab oo ah tii ay u soo direen qareenka oo ay qoreen maamulka Masjid Salaama loona diray maxkamadda Homeland Security-ga iyo FBI-da iyo dad kale. waxa ku qoran in ay rumaysan yihiin in Masjid Ibn Taymiyyah maamulkiisu ay rabaan inay la wareegaan Masjid Salaama, arrintaas oo ku salaysan fikradaha diinta ay kala qabaan labada masjid oo kala duwan iyo soo badashada dadka Masjid Salaama ku tukada. haddaba daawadayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi u gaar ah wargelin oo aan ka soo qaadnay maamulaha rugta dhismaha gubtay ee Masjid Salaama uu hoos yimaado. maalintii dawlad markii ay ku horeysatay TV-ga NBC-da oo magaalada waxaa tiri dad aan buuq naga dhaxeeyay baa noo hanjabay oo hanjabaada noocaas ah sida ay ku timid. waa hadda walaalaha volunteer-ka ah masaajidka hanjabaado kala duwan inay ka yimaadeen qaar aniga maaragtay igu hanjabeen
qaar hataan kuu sheegay anigoo hataa landlordkii meesha la joogno gurigiisa Dayton ay hanjabaadaas ay sameeyeen qaar ay maaragtay hanjabaadaas ay ku sameeyeen rag meeshay wax naga wada dhexeeyeen oo liiska soo wareejiyey oo yarka maxamuud garam laba walaalihiis ah in hataa habeenkii dabku u dhacay maalintii ka horeysay mid volunteer oo masaajid ka socda u yimid uu ku yiri maaragtay maadaama maxkamad lanoo ballamiyey oo eviction uu ballansan yahay yani court hearing courtiga asaga ha imaanina si micnaha meeshii aan u diraagarayno courtigii iyo casekaas marka ayagana ay u sheegeen annaga iyo landlordka ninka carabka oo meesha iska leh iyo maxamed xasan kulligeen isku nidaam baan nahay meeshan waa imaanayna goobta ayada ah wixii lanooga baahan yahay oo testifying ahna waan sameynaynaa markaasna uu ku hanjabay ninkii u yimid ayaga oo masjid ka socday in macnaha wixii dhaca la arki doono meeshaas inaysan nabad ka dhici doonin sida ayada ku hanjabay waxaa kaloo jirtay hataa adiga mar aad wareysi la yeelatay mid ayaga kamid ah volunteerska masaajidka in hataa website-kaaga uu ku jiro bartamaha aakhir haddaad dhegaysatay meesha u dambeysa inuu maarata dhaaranayo uu leeyahay haddii arrintaasi meeshatan annaga laynoogu soo galo inaan nabad lagu noolaan doonin oo ay wax dhici doonaan marka hanjabaadaha noocaas oo kale ah iyo kuwo fara badan oo maarata halkan aan kusoo koobi karin oo mar walba iska socda threat yani maaragtay xataa masaajidka dhexdiisa hataa yani laga leeyahay in meeshii anagina aan wayno cid kalena ay soo gasho inaysan maaragtay dhacaynin dadkii ay u tusayaan siyaabo kale marka waxaasoo idil waxay kutusi karaan ama kugu liid garayn karaan in meeshii wax jiraan laakiin dabkan yaa huriyey yaa ka dambeeya meeshaan dhibaatadan weyn gaarsiiyey allah subxaanahu wataala yaa garanaya mana garanayno oo ma dhihi karno hebel iyo hebel wey laakiin in disputekaas iyo waxyaabahaas lanagu yiri way jiraan oo muranka asaga meesha u yaalay fakartay dhowr jeer horena waa labada dhinac waa wareystay aday hataa waa ku wareystay laakiin waxaa moodaa dadka sheekadan ka warqaba dadka magaalada degan soomaalida in laga dhigay laba masaajid oo yani masaajidka la meesha saaraya labadaas oo kale ah masaajidka ibn taymiya iyo masaajidka salaama oo meesha ruuxeeda ku yaala marka maadaama adigu dadku ay farta kugu fiiqayeen qofka meesha la wareegina tahay maxaa ku lug leedahay ama yani roolkaaga muxuu yahay masaajidka ibn taymiya well aniga horta masjidka maamulkiisa ayaan in muddo ah ka mid ahaa xaqiiqatanna waxaan uga mid ahaa qaab volunteer ah masaajidina waad garanaysaa maar dad volunteer isu yimid baa hagaajiya wixii markaas maskaxa isu geeya isku dubaridkiisana ka shaqeeya marka individual waxaan ka mid ahaa volunteerskaas masjidka ibn taymiya howlwadeynadiisa ah haddana markii dambe yani muhiimadii iyo doorkii aan u hayay wadaad kale hadda meeshii jooga xafiiskii oo hawshii wada aniguna dee shaqooyin kale iyo umuuro kale waan maarata ku mashquulay wixii laakiin dacwo ah waa mas-uuliyad qof walba oo muslim ah saaran in meel kastoo haboonaan yani ku haboon inuu kasii wado ay tahay inuu kasii wado marka volunteerska boardka waan ka mid ahaa laakiin yani dadka ku qoran oo masaajidka iyo trustigiisa iyo yani maaragtay final decision makerska ah oo meesha ku qoran oo biyo kaba dhibcaanka ah anigu kamid maan ahayn laakiin volunteerskaas oo howlaha maaragtay day to day wixii markaas looga baahan yahay qof walbana ay u furan tahay xataa adiga cabdisalaan ah kasoo qaybgali kara ku furan qof noocaas oo kale ayaan kamid ahaa middanna waa mid aniga macnaha yani howl aniga kaliya aan isu diray oo aan qabtay oo rag kaloo dee markaas ganacsada ha ahaadaan ama walaalo kale ha ahaadaanna ay yani maaragtay qeyb ka qaateen ay ahayd laakiin masjidka ibnu taymiya iyo imaamkiisa iyo ragga kaleo howlwaneedaka boardka ku jira intaasiba inaysan shaqo ku lahayn marka waa tii haddaan kuu sheegay hadaay oo qofka si uu meesha usii haystoo kale walaalahan inay meesha usii joogaan wax kastoo kaar ah oo possible ah inay xoqaan bay xoqayaan hadday tahay buhtaan hadday tahay been hadday tahay mushkilado kale hadday tahay umuuro mar ay dadkii u tusaan in masaajid uu soo duulay mar inay u tusaan in qabiil soo duulay mar inay u tusaan macnaha ganacsado kale inay soo duuleen marba si marka waxay ka mid tahay waxyaabaha ummadda lagu jahawareeriyey oo loo baahan yahay allah subxaanahu wataala looga baqo oo ciddii waxaas faafinaysana ay ka waantoodo dadka beriga ka ah iyo masaajidka beriga ka aan meeshii la keenin ummaddana waxaan maaragtay leeyahay arrimaha noocaas oo kale inay iska hubsadaan intii ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy kitaabkiisa maaragtay in jaakum faasiqun binabayn fatabayanu haddii qof yani faasiq ah uu maaragtay idinla yimaado
arrin iska caday arrinkaas iska hubsada wax saliim ah oo qofka walaalka aad waxba u dhimin in qofka asaga uu ka shaqeeyo waxa dhagahaaga ay diidayaan inay maqlaan ama mas'uuliyad ay ka saaran tahay carabka inuu ka hadlo in as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kana anhu mas'uula in qofkii uu iska jiro mid kale oo idan dhacis waxa weeyaan dhibaato kale leedahay dadku waxaan wadwada oo kaga sheekaysanaya goobaha maarta fadhi ku dirarka ama meelaha shaah lagu cabo kale arintan heerarka aan loo baahnayn gaarsiinaya waa inay ogaadaan macnaha xasanaadkoodii ay sameynayeen ilaahay ugu dhawaanaya subxaanahu wa tacaala inay cid kala siinayaan cid ay xamanayaan oo markaa been ka sheegayaan ama buhtaan ka sheegayaan in xasanaadkoodii uu maarta soo aadayo marka ciddii doonaysa in wax xaqiiqadeeda ogaato right sourciga waa aniga inay iga wareystaan sida haddaba macnaha cabsanaad ku mahadsan tahay aada iga wareysatay waataa daawadayaal fari kama qodna faanole waxaanu idiin haynaa wiil 5 jira oo idin cajab gelin doona nin dad qala ayaa gabar da'deeda lagu qiyaasay ilaa iyo 8 jir waxa uu ku duldulooliyay mindi isla markaana uu dhiiga kaga nuugay iyadoo la joogta ari deegaanadaas xaabaale oo ilaa iyo 15 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaaladaas Hargeysa arrintani waa arrin dhacday oo runa waxaana video-gan ka soo qaadanay Waryaa TV ee nala daawada gabadha lista tiraayo maanta ama xalay keen dhakhtarka magaalada Hargeysa oo dadqal ku cunay xaafada maslaha ee duleedka magaalada Hargeysa dhinaca koonfureed gabadhan oo dadqalka la sheegay ka taagay midida madaxa iyo luqunta ayaanu ku booqanay maanta isbitaalka magaalada Hargeysa aabaheed Ibrahim Xuseen ayaan wax ka weydiinay barsidii weerarka gabadhiisa lagu qaaday waxaana uu gaaray أولا داوي وقاري وقتيدي ساعتي دغرنتي كدبيسay inoo shalaya marka waxa weeyaan deena lagu meesha ma joogno waxaan joognaa halkan oo noo soo sheegay una marka dawladda iyada sidoo ma noo keenay ma garanaysa waxay taa tafaasiil ka bixiyo in inta la joogo meesha ma jiro kaligeed baa ay dhibicid la joogto marka waxa weeyaan iyadoo kuma gasho amar taalan baa uu soo baxay garanaysa marka sidoo baa uu soo qaaday wax tafaasiil ah taa wuxuu ahaa in halkan baa tiri wuxuu aan mariyad ee baanu igu soo gabay dabeedna uu qabtay ma garanaysa قال لكم بدي يبدي يكون كعبي بس فكان وقت يعني نمك عدين كرتو وعاء وقال الله أعلم ما كرمي وكان قبضة نقول أي كل يوم تاني بجتي كل يوم ما أنا يمكن فوقي من تريد فوقي من لكن بين مكان شو ولم مركي درتين داول هذا يسوي تاي ما تدري مركب بارتاس نسان ناظر عرض من تسكن المية بحنا معي ده وين اللي مركب حلمي تيجين وخلق فيهم بدو مرنا وبرناي ما كرمي ogeysiinayna dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas Minnesota gaar ahaan magaalooyinka St. Paul iyo Minneapolis in maalinta Talaadada ah ee bisha tahay 7 November la soo deyn doono barnaamij khaas ah oo af Soomaali ku hadlaya kuna saabsan cudurrada la isugu gudbiyo galmada barnaamijkan wuxuu soo baxayaa maalinta Talaadada ah bishuna ay tahay 10 November 7 fiid ayaa waxa ka daawan kartaa TV-ga St. Paul oo ah TV-ga SPNN loo yaqaan channelkuna uu yahay 9 wuxuuna isla markaasna ka soo bixi doonaa raadiyaha loo yaqaan KFAI 7 iyo barka fiidnimo mowjadaha raadiyahani waa 9.3 iyo 106.7 waxa kaloo tagi kartaa Carmel Mall lambarka 185 haddana waxaa la soo gaaray videogii toddobaadka laakiin intaan u gudbin waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aal markaa 5 sano jirtay ama wiilkaaga markuu 5 jirka ahaa xoogaanu kala ma laha wiilkan magaciisa waxa la yiraahdaa Giuliano Stroh waa 5 jir una dhashay wadanka Romania wuxuu haystaa koobka ah wiilka adduunka ugu xoogga badan wuxuu ku qoran yahay rekoorkiisa buugga loo yaqaan Guinness World Record oo wiil aad u xoog badan sida aad ka arki doontaan videogan ee balnala daawada Doi 3 4 5 6 5 5 Met 6 7 5 6
Grazie. 4. 5. Siap? Bicara ya? Whisky. 1. Ya. Hai. Asya. Asya. Hai sus. Hai. Bin sus. Asya. Hai. 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 waa tahay daawadayaal waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena inta laga gaarayo toddobaadka soo socda waxaanu idiin haynaa video ka mid ah qayb aan idiin soo dayn doono toddobaadka soo socda waa duuliye Soomaaliyeed degana waddankaas Australia inta laga gaarayo toddobaadka soo socda waxaan idin leenahay raadiya nabadda iskana ilaaliya qabiilka barnaamijkeeni wargelinna intaas ayuu ku egyahay